dhammaantiin waan idin salaamay. Waqtiga salaada subax waxay dhalinyaro badan u leeyihiin caado in markay tukadaan ay dib ugu noqdaan. Lama hadlayo dadka inta badan salaada subax hurdada ay dhaafiso. Dad xalay waqti fiican soo heshay oo hurdo fiican soo seexateen habeenkii waqti hore aad seexato. Maskaxdaadu waxay diyaar u tahay inay si awood leh u qabato dhammaan hawlaha jirto. Saddex faa'iidana yani waan ku arkay. Faa'iido koowaad waxa weeyaan waqtigana waa waqti structure-ka waxa la dhahdaa wax kastoo ku mashquulin kara uu iska yar yahay dadka badankoodii hurdaan hawlo iyo shaqo ma jiraan deetana waqtiyada kale si buu uga badan yahay waayo waxa ku ka mashquulinayaan waxa weeyaan culays ku saaraya ma jiro marka waa fursad aad wax ku akhri karto oo xog fiican ku heli karto si fiican yani focus-kaaga uu shaqeynayo qodobka labaad wuxuu noqonayaa waa fursad aad ku dhisi karto caafimaadkaaga haddii doonaysid inaad gym ka gasho iyo haddii doonaysid inaad waxa weeyaan ku jimicsato guriga dhexdiisaba waa fursad weeyaan oo jirkaaga si fiican ugu dhisi karayso qodobka saddexaad waxa weeyaan waa fursad aad isku baran karayso way waqtigan aad haysato haddii aad naftaada si fiican ula fadhiisato qorshayaashaada aad si wanaagsan uga fikirto oo wixii kaa qaldan aad qorshayso kaa qabiyaa wax badan bay kaga duwanaan doontaa waqtiga kala buuqa jiro way jooga aad u degan yahay maskaxda waxay diyaar u tahay xog kasta oo ay helayso inay si fiican u focus karayso laba shay oo kaaga digaya social media inaad ku soo degdegto ka hor intaanad hawlaha soo dhamaysan qodobka labaadna inaad hurdada ku noqoto waayo labadan xaaladood waxay ku gelinayaan xaalad aad marka qaarkood laga yaabo in moodkaagu uu noqdo mood aan wanaagsaneyn social media hadii ku soo degdegto xog aan wanaagsaneyn laga yaabo inaad la kulanto haddii aad hurdada dib ugu noqotona caadsi inaad la kulanto laga yaabo marka fursadani waa fursad aad muhiim ah salaad subax waqtigeeda markaad u kacdo ha ku noqon ee ka faa'iideyso waa waqti ay dadka intooda badan wala dadka horumarka gaaray gaar iyo islaamba ay soo jeedaan oo ka faa'iideystaan waqtigoodaas